بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu kaga hadlaynaa muuqaalkan kooban all about this course yani macluumaad ku saabsan koorsadan AutoCAD-ka ayaynu kaga hadli doonaa AutoCAD-ka aan ku baran doono waxa weeye AutoCAD 2020 from a professional AutoCAD trainer kaas oo ku siin doono professional AutoCAD trainer waa 2020 sidoo kale waxaan samayn doonaa at the end of the course project based training yani project aan dhisi doono oo 2D ah koorsada magaceeda waa AutoCAD for beginners skill level ka loogu talagalay waxa weeye all levels beginner intermediate advanced language ka ama luqadda uu ku bixi doono waa afka hooyo af Soomaali iyo sidoo kale English oo terminologies badan oo xajja afka hooyo aan ku waayay oo English ah jabtarada ay ka koobanta koorsada waa 8 jabtar casharada ama muuqaalada ka diyaarsan waa 54 cashir 54taas cashir 24 kamid ah waa free waxaad ka daawan kartaa YouTube channel-kayga Engineer Shaati Cabdi barayska ama qiimaha koorsada waa $12 oo kaliya ayadoo ay la socoto waliba shahaado markii aad dhameysid koorsada shahaadada aan bixinayno waa shahaado ka soo bixi doonto Wama Academy oo ii sheeg academy ama xarun waxbarasho oo badanaa lagu daraaseeyo engineering haddii waxaan faahfaahin aan ka bixiyo koorsada the description of the course koorsada waa AutoCAD 2020 waa complete 2D training waaye taasoo ka kooban inta badan jabtarada looga baahan yahay software-kan 2D waxaana loo qaabeeyay koorsadan dadka yani ku cusub koorsada waa beginner waaye as well as advanced level waxa sidoo kale waxa ayagan wax badan ka faa'iido doon dadka advanced-ga ama intermediate-ka qofka yani bilowga ah wuxuu isla markiiba bilaabi karaa cashirkaas oo cashirka koowaad ka bilaabayo ilaa iyo advanced uu ka gaarayo marka koorsadu waxa weeye qofka advanced-ga si comprehensive ah ayuu waxa uga faa'iidi doonaa maxaa la jiray sheeg koorsada marka haddii aan fiirino major topics-ka yani jabtarada waxa kamid ah yani inta bas ma jabtarada ilaa 8 jabtar waaye laakiin major topics-ka looga hadlayo waxa kamid ah working with commands-ka ama amarada ugu muhiimsan modifying different objectives in la modify gareeyo objectyada working with layers kamid ah working with dimension kamid ah working with text kamid ah yani jabtarada way badan yihiin haj kamid ah status oo qaybta ay sheegay introduction ka doona kamid ah complete project oo da A to Z aan ka bilowna dhamayn doona ku jiro oo guri aan dhisan garan doona duulahaydno marka you will learn with course yani maxaad ku baran doontaa yani taas waxay jabtarada ama major topics-ka ay ahayd waxaad ku baran doontaa koorsadan edit garayso ama aad ka shaqeysiiso AutoCAD 2D plan different commands inaad waxa weeye la falgasho with 2D modifying objectives working with layers working with dimensions working with text tables kuwa jabtaradaas iyo kuwa ka badan ba ama cashiraas kuwa ka badan insha Allah waad ku baran doontaa marka koorsa yaa baranayo koorsa waxa baranayo ardayda aan aqoonta fiican u lahayn AutoCAD-ka ama si kale kugu dhoo dhammaan ardayda barato cilmiga engineering ee ballaaran civil 3D civil engineering mechanical engineering electrical engineering all engineering fields way u baahan yihiin koorsada sidoo kale waa kuwa bilowga ah oo dhammaan cashiraas baranayo fields barto sidoo kale qofka aqoonta u leh AutoCAD-ka ama advanced-ga ama ay sheeg intermediate-kana waxun buu ka baran doonaa koorsada ama sidoo kale qof walba engineer buusan ahaan ee doonayo inuu AutoCAD skill ahaan u barto drafting-ka ama ay sheegeen ayuu anfici doonaa instructor-ka ama lecturer-ka qofka barayo magacayga Bashiir Sheekh Cabdullaahi baa la yiraahdaa Engineer Shaati Cabdi waxaan ahay nin ku xil dheer ama aqoon u leh yani professional-kiisu yahay civil engineer background-kaygana waxa strong background aan u ahay ma raba inaan samaano laakiin sida xaqiiqada drafting ama waxa loo yaqaan designing sidoo kale waxaan aad ugu shaqeeyaa highway engineering oo professional-kii ama specialization-kayga ah marka soo dhawaada waxaan si gacmo furan ku soo dhaweynaya koorsadan
waxaa weeye waxaan rajeynayaa in dhammaan dadka Soomaalida ka faa'iideysan doonaan marka muuqaalkan hordhaca waxaan ugu talagalay inaan faahfaahintaas aan kaga bixiyo koorsada any question aad qabto ama su'aal kasta oo ay soo weydiin kartaa marka soo dhawaada baraysku waa ka kooban yahay just waa $12 oo kaliya oo waliba shahaado ay la socoto waxaan ugu talagalay in qof walba uu awoodi karo marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum.